furitaanka shirka saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa weli wajahaya caqabado adag oo ilaa iminka uusan shirka ka furmin. waxaa ilaa hadda aanan qabsoomin shirka saddex geesoodka ay la filayo in ay yeeshaan madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la filayay inuu qabsoomo Khamiistii la soo dhaafay. madaxtooyada Soomaaliya ayaa maalinnimadii Khamiista waxa ay sheegtay in habeenkaasi madaxtooyada uu ka furmayo shirka inkastoo uu baaqday ilaa haddana uusan qabsoomin. furitaanka shirka oo wajahaya caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay arrinta Jubbaland iyo gobolka Gado oo dawladda federaalka isku hayaan, waxaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu dalbaday in dawladda federaalka ay ciidankeeda ka soo saarto gobolka Gado, gaar ahaan ciidamada laga qaaday magaalada Muqdisho in dib loogu soo celiyo magaaladan. sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa ku doodaya in dalka aysan ka jirin xukuumad fulisa waxa lagu heshiiyo, taasina ay tahay in oo kaliya madaxweynaha wax walba aan laga sugin. wuxuuna madaxweynaha ugu baaqay Siciid Deni inta ay joogaan magaalada Muqdisho la magacaabo xukuumaddii ra'iisul wasaaraha hogaamin lahaa. ila wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in kulanka xalay ay yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo sidii hore isaga soo dhawaadeen, isla markaana uu jiro isfaham hordhac u ah suuro gelin karana in uu qabsoomo shirarka la filayo. warar ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac ay isku fahmeen in xal laga gaaro arrinta gobolka Gado, isla markaana guddiyo min hal xubin ah loo saaro oo farsamooyin ah kuwaasi oo ka shaqeeya xiisadda dhinaca dawladda iyo maamul goboleedka Jubbaland ee gobolka Gado ku saabsan. warar raadiyo kulmiye ee heshay ayaa tibaaxaya in saacadaha soo aadan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya suuragal ay tahay in uu ka qabsoomo shirka saddex geesoodka ee